الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا barnaamijkeennii ahaa dhacdo iyo dhiirigelin aynu ku soo qaadan doono qaybteennii labaad ee sheekadeennii fikirkaagu waa hoggaanka noloshaada. aynu soo qaadana sheeko caan ahayd oo aan tan ku soo xasuustay. waxaa jiri jiray nin la odhan jiray Kaafuur al-Yakshiidi oo addoon ahaa. wuxuu ahaa nin madow ah oo Afrika laga kaxeeyey. ayaa waxaa la geeyey carriga Masar magaalada Qaahira isagoo ay silsilado ku xidhan yihiin oo uu ku lamaan yahay nin kaloo isaguna Afrikaan madow ah. labada nin waxaa loogu talagalay in la adoonsado oo la iibiyo. waxaa la keenay suuqii cabiidka lagu kala iibsan jiray. waxaa lagu daray safafkii taagnaa fagaaraha saylada cabiidka. iyagoo aan weli la kala iibsanin ayaa Kaafuur waxa uu saaxiibkii su'aalay, maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto? waxa uu ugu warceliyey oo yidhi, waxaan jecelahay inuu iibsado nin hiliblaah oo aan hilibkaas u googooyo oo aan halkaasi weligay ku noolaado oon maalin kastana hilib kaa cuno oonan maalinna gaajoonin. Kaafuur baa yidhi, anigu waan kaa duwanahay oo waxaan jecelahay inaan waddankan addoonsiga laynoo keenay in aan madaxweyne ka noqdo. waqti yar kadib waxaa u yimid nin hiliblaah oo iibsaday ninkii Kaafuur la socday. Kaafuurna waxaa iibsaday ninkii waddanka xukumayay oo cabiid doonayay. muddo kadib ayuu kartidii iyo dadaalkii Kaafuur u qushuucay ninkii iibsaday. waxa uuna ku daray ciidanka waddankiisa. Kaafuur uu sii dadaalay waxaana loo magacaabay wasiir sare. muddo kadib ayaa boqorkii waddankaasi gaboobay. waxa uu u yeedhay Kaafuur oo ku yidhi, Kaafuuro waxaad tahay mid karti iyo daacadnimo badan. waxaan doonayaa inaad waddanka hoggaamintiisa isu diyaariso. waayo waan taag dareeyey. waqti yar kadib ayaa Kaafuur la wareegay hoggaankii waddankaas. waxa uuna noqday madaxweynihii Masar. sida ay taariikhda waddankaasi qortay, waxa uu Kaafuur noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah ee waddanka Masar xukuma. waxa uu xukumayay muddo 23 sano ah. sidoo kale waxa uu noqday madaxdii waddankaas soo martay kuwii loogu jeclaa uguna daacadnimada badnaa. si ay taariikhyahanada waddankaasi sheegeen, intii uu waddanka Masar hogaaminayay waxaa dowladiisu noqotay tii ugu quwadda badnayd dowladihii barigaas soo maray. waxaa ka baqi jiray dowlado badan oo dunida ka atooran jiray barigaas. dowladii Faadimiyiinta ee Shiicada oo damacday inay qabsato waddanka Masar lafteedu way u badheeri kari weyday dowladda uu hogaaminayay Kaafuur. waxayna halhalays ka dhigan jirtay, Masar ma weerari karno ilaa inta uu dhagax madoobi meesha ka dhaqaaqayo. dhagaxaas madow waxay ula jeedaan Kaafuur inta uu xukunka ka degayo. sida ku cad diiwaanka taariikhda Masar, waxaa la sheegay intii uu Kaafuur xukumayay waddanka Masar uu gaadhsiiyey horumar aad u sarreeya, waddankana ka dhigay mid hodan ah oo aan cid faqri ay joogin. cadaaladiisa awgeedna la waayay cid sakada qaadata. waxaa weli laga sheekeeyaa Kaafuur geesinimadiisii, hoggaamintiisii, kartidiisii iyo dadaalkiisii halka uu waddanka iyo naftiisaba gaadhsiiyey. waxay buugaagta waddankaas ku qoreen inuu ahaa nin hamigiisu aad u sarreeyo kuna fakari jiray meel sare ilaa ay riyadiisu u rumowdo. haddaba akhristow ama daawadow, ma odhan karnaa fikirkaagu waa hoggaanka naftaada oo waxaad ku fakarto kuna dadaashid waad gaadhi kartaa. halkaasi ay inoogu egtay sheekadeennii ahayd fikirkaagu waa hoggaanka noloshaada. su-aashaana commentiga nagula wadaaga.